على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج. سورة دني أيضا هو سورة مكية waxay soo degtay hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor bayaduna soo degtay waxay ku saabsan tahay oo inteeda badan ka hadlaysa qiso cajab badnayd niman gaala aha oo madax aha oo dhul ka talin jiray oo dad mu'miniin ah oo ilaahay rumeeyay intay qabteen dab ku guray qiso dheer bay ahayd xadiidka muxuu ahay muslim iyo tirmidhi ya soo saaray min xadiith suhayb waa qisada saaxirka iyo raahibka la yiraahdo yaani nin waxa jiri jiray madax ah nin madaxa jiri jiray qisada marka la soo gaabiyo ninka madaxda dhul buu madax ka ah gaal lagu ah nin marka wuxuu laan jiray niman culimo ahoo sixirka u qaabilsan ninkii sixirka u qaabilsanaa baa marka daoobay duqoobay ninkii madaxda uu tagay warwaan duqoobay nin dhalinyaro ah oo aan cilmiga sixirka ku baro oo iga qaato iga dhaxla oo booskayga gala iiken wiil yaro fariid ah ayuu ninkii boqorka soo qabtay wiilkan sixirka barbuud wiilkii yarka marka sheekhiisa saaxirka buu u tagaayo darsiga ka soo qaata subaxdii uu soo noqdaa xaafadoodan ku soo noqdaa suu sida uu ahaa oo marna u sii socday marna u soo noqonay ayuu maalintii dambe dhexda isagoo socda ayuu wuxuu ku soo baxay nin raahib ah nin iska duur galo wadaad ah oo meel intuu samaystay meel ilaahay ku caabuday cidla ah ninkii buu ku leexday wiilkii yara ninkii buu wax ka dhageystay waa ku qancay ninku tawxiid iyo ilaahay iyo khara iyo waxbuu ka hadlayaa wiilkii yara wixii buu ku qancay wuxuu sameeyaa marka maalin walba markuu darsiga u sii socdo intuu wadaadkaasi duurka ku jira intuu la yara fadhiisto darsiga ka dhageysto buu saaxirka u tagaa saaxirku waa garaaca marka waxaad ku soo daaday waa la tumaa markuu soo noqdo oo uu ka soo noqdo darsiga saaxirka oo uu u soo noqdo muxuu ahay xaafadiina iyadana uu la yara fadhiistaayo uu ku yara daaha xaafadii baa hadana garaacda wariya xageed ku soo daahday darsigii baa maantana lagu dheereeyay cabaar buu saa ku jiray oo gurigana la garaacay markuu wadaadka saaxirka u tagana uu garaacay wiilkii maalinta dambe soo u socdo jidka haya ayaa wuxuu ku soo baxay jidkii dadku marayeen xayawaan aad u weyn oo jidka fadhiya oo dadkii ay mari la yihiin ma libaax ba ma wax kale Allahu a'lam markaasuu intuu dhagax yar qaatay dhagax intuu qaatay buu wuxuu maantan kala ogaanaya wadaadka duurka ku jira inuu wuxuu haysta saxiya iyo kan saaxirka ee sixirka ibaraya wixiisu inuu saxsan yahay maantan kala ogaanaya markaasuu intuu dhagaxii qaatay buu ilaahayow haddaad wadaadkaasi raahibka wixiisa jeceshahay oo saaxirka ka jeceshahay maanta dhagaxa ku dil daabada baasha dadka hortaaga dhagaxii buu tuuray mise baashi waa ku dhimatay markaasuu ogaaday saaxirkan iyo wuxuu wataba inuu waxba ka jiro bas sidii buu arrinkii saaxirkii kaga baxayo ilaahay buu rumeeyay wiilkii wuxuu noqday wiil cajab badanoo ilaahay wuxuu baray cudurrada yaani wax weeyaan waaweyn khatarta ah sida baraska iyo wixii la mid ah daawooyintoodu alla baray waa ducaynaya waa daawoobaya maalintii dambe waxa dhacday nin madaxweynaha boqorka la fadhiisan jiray oo dadka ka agdhow ahaan jiray oo indhala ah ayaa waxa lagu yiri war wiil yar oo waxa jira dadka indhaha la daaweeya warbal iigeeya waa u tagay wuxuu yiri niyo indhahayga inaad ii soo celisaan raba indhaha soo celisaa baa la yiri indhaha ii soo celi war anigu indha ma soo celiyee ilaahay baa indhaha soo celiyay haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu bariyay indhahana waa lagu soo celin insha Allah ilaahay rumee
ilaahay baan rumeeyay buu hadaba indhahayga hela sidii ilaahay ku rumeeyay wiilkii yaraa ilaahay buu u bariyay indhihiiba fad indhihiiba u soo noqday waaba kanba si fiican buu u arkay ninkii boqorka ahaa buu u tagay oo golihiisii iyo xafiiskiisii buu tagay oo isagoo wax arkay war indhaha ayaa ku soo celiyay rabbigay baa ii soo celiyay maana ku soo celiyay lan isaga rabbi isaga dhigi jiray mugta maana adiga wada war ma rabbigay baa ii soo celiyay oo ma rabbi aan aniga ahayn baa jir rabbigay iyo rabbigaaguba waa Allah buu ku yiri ajab war waxaan ku soo galay xagee ka yimid wuu qabtay wuu ciqaabay marka xageed ka keentay buu fikirka wiilkii yaraabo markii la tumay oo la garaacay oo la karbaashay wiilkii yaraad wiilkana ay baray wax wiilkii yaraabo la qabtay waxa la yiri sheeg meeshaad ka keentay fikradan sagiina waa la yara wuxuu ka fursan waayay inuu wadaadkii raahibka ay duurka ku jiray inuu u geeyo yiraahdo wadaadkana ay baray wadaadkii baa la soo qabtay isaga lagama hadlinina waa la dilay kow kii baa la yiri ka noqo isagana wasiirka ahaa kama noqonayo yiri waa la dilay isagana wiilka yarka marka isaga lix jecla laga qabaayo la iskama dilayo ilaan cilmigii sixirku xambaarsan yahay moogta xogaa waa la yaraan loo yar caga jugleynaya waxa la rabaa in laga soo celiyo isagoo nool waxogaagiisa waa la ilaashan wuxuu yiri ninkii madaxda qaado intaad buurta heble la yiraahdo saartaan wiilkan korkeeda markuu joogo ka noqodha war ka noqo fikradan hadduu ka noqon way halka ka soo tuura hadduu ka noqdana ii soo celiye buurtii baa la saaray meeshii markuu saaran yahay buu wuxuu yiri allahumma kfinihim bima shiita ilaahu kuwan waxa doonto isticmaalo ilaahu iga kaafi wuxuu iga kaafi buurtii baaba ruuxatay oo gilgilatay oo iyagii oo dhan baa daatay keligii baa soo haray muusan iska cararine meeshii buu ka soo lugeeyay markaasuu ninkii madaxda ahaa boqorkii buu xafiiska ugu soo galay waraawe dadkan ku soo dhiibay ilaahay baa iga kaafiyay buu dadka ku dhiibay ilaahay baa iga kaafiyay haddana intuu qabtay buu qolo kale u dhiibay wuxuu yiri intaad doon qaadataan oo badda la martaan badda bartamaheeda markaad maraysaan waxaad tirahdaan wariyaa ka noqo hadduu ka noqon waayo badweynta ku tuura ka soo noqdo hadduu ka noqdana ii soo celiya meeshii badweynta bartankeeda markay marayaan buu sidiisii oo kale ilaahay bariyay allah ilaahay iga kaafi buu kuwan doontii baa ruuxatay iyagii baa daatay keligii baa doontii ku soo hadhay iska muusan cararin waa nin dan leh doontii buu dib u soo kaxaystay soo socday buu u yimid boqorkii waraawi dadkan ku sii dhiibay ilaahay baa iga kaafiyay wuxuu yiri ma rabtaa inaad disho ima dili kartid buu horta waxa aan hadaad rabto inaad disho saan rabo yeel buu ana ku sheegi saad igu dili lahay haye horda dadka dhan soo shiri buu meel banaan oo ban isugu keen haye anigana anoo xirxiran oo daldalan isoo istaaji leebka iyo qaansada markaad isa saarto waxaad tiraahdaa bismillaahi rabbil ghulaam alla magaciisa allihi wiilkan yarka rabbiga u ahaa magaciisan ku ganayaade kadibna leebka saa iigu gambuur waad dili markaa dadkii buu soo shiriyay meel banaan baa la isugu yimid wiilkii buu soo xirxiran keenay bismillaahi rabbil ghulaam waa ganay halka dhafoorka buu kaga dhacay leebkii wiilkii waa dhintay wax alla wixii meesha yimid oo dhan ba hal mar waxay yiraahdeen aamanna bi rabbil ghulaam wiilka yarka rabbigii baan rumaynay been baan nagu haysatay iyo darabullah waxba ka jir ku beeninay ku dheh rabbigii koonkan iska lahaaya wiilka yarka rabbiga u ahaa baanu wada rumaynay waa fashilmay ninkii marka boqorka xaajadii waa qadhaaraatay Soomaa dadkii hoostiisa ka baxeen ilaan been marka hore ugu haystay markaas wuxuu amray wadooyinka dhinacyahooda oo dhan godad waaweyn ha laga qodo dabna ha lagu shido mudda dabkii la shiday dabkii markuu karay oo dhuxulaystay oo holcay ayuu yiri dadkii saf soo galiya dabka korkiisa markuu ruuxu taagay waxa tiradan ka noqo hadduu ka noqon waayo dabka ku rida
hadduu ka noqdana soo celiya dadkiibu dabkii ku guray isagii iyo madaxdiisii iyo wasiiradiisii iyo dawladdii meeshaa la fadhiyaa kuraas baa la soo dhigtay oo dadka sida loo cadaabayo ee dabka loogu daadinaya la daawanaya dadkii baa dabkii lagu guray ayaguna waa adkaysteenoo cadaab aakharo mid adduunyay ka doorteen sooma waa isku gureen ilaa markii ugu dambeysay haweenay ilmo yar dusha ku sidata ay dabkii ku soo beegantay markaasay naftu siin weyday dib bay u istaagtay ilmaheedii yaraa ay dhabarka ku siday baa la hadla wuxuu yidhi hooyo xaq baad ku sugan tahay dabka isku tuur markaasay dabka isku tuurtay dhacdada iyada ah oo dad mu'miniin ah oo ilaahay rumeeyay inay Allah rumeeyeen loo gubay bay aayadu ka hadlay suuradu ka hadlaysaa marka nimankaasi waxay sameeyeen oo dadka mu'miniinta ku sameeyeen iyo ma dambi bay galeen maxaa saa loogu galay iyo maxaa ka dhalan doona taas laga hadlay والسماء سمدي بان الله ku dhaartay buuri samadii daatil buruji boosaska u saaxiibka ah buruujta waxa la yiraahdaa waa manaasisha qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo meelaha ay degaan ilan kolba meel bay fadhiyaan Soomaa sodadii dayaxa meedaan arkin habeen bay meel buu fadhiyaa qoraxdu kolba meel bay fadhidaa daruuruhu kolba meel waxaan u jeegaa xidiguhu kolba meel bay fadhiyaan boosaska ay fadhiisanayaan baa waxa la yiraahdaa buruuj la dhahaa samadii baan ku dhartay daatil buruuji ee boosaska u saaxiibkayd manaasisha u saaxiibka wal yawmi maliki baan ku dhaartay al maw'udi ee la yaboohay maalinka la yaboohayna waa maalinka aakhiro ilan waa la inoo yaboohay waa ballanqaad sooma wa shaahidin baan ku dhaartay ku goob jooga oo xaadir ah wa mashhuudin iyo kula xaadiray ku xaadir ah iyo kula xaadiray maxaa laga wadaa macaani kala gidsan bay culimadu ku fasiraan xadiis baa jira Abu Hurayra oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah maalinta la yaboohay waa maalinta qiyaamada wal yawmul mashhud yawmu arafa maalinta la xaadir mashhuudka la xaadirayana waa maalinta arafa washahidu yawmul jum'ah shahidkuna waa maalinta jumcada macnaha hadii xadiiskaas sida noqdo culimada qaar baa saxiixinayay يعني معنوه وحو نقونيا وشاهد كو حاضري بان محو اهايه كو دارتي او مالينتا جمعدا اما شاهد مد مرخاتي فريه ومشهودنا ومد حاضري او مالينتا قيام مالينتا عرفو نقونيا الى مالينتا عرفو وحا حاضريا انتي حجينيسي iyo malaa'ikti iyo rabbi oo samada soka iimaanaya marka waa yawm mashhuud awaa yawm mashhuud awaa waxa kale oo la yiraahdaa waa shaahidin wa mashhuudin macna ka guda weyn oo waxa la yiraahdaa mid kasto xaadiray iyo mid kasto la soo xaadiray adduunyo aakhiro oo dhan meel jiraba waa laga wada intaas oo dhan baan ku dhaartay Rabbi tabaaraka wa taala ee qutila waa la lacnaday ashaabul ukhdudi jeexjeexdiyada ama jeexjeexyada asxaabtood waa la lacnaday ukhdudu waa jeexdimihii ay ku sameeyeen jidadka dhinacyahooda Soomaynade ee dadka ay ku gurahayeen ukhduuda taas la yiraahdo qutila wala nacnaday ashaabul ukhdudi jeexjeexyaalka asxaabtoodii kuwii jeexjeexyada u saaxiibka ahaa ee dhulka jeexjeexay godadka ka sameeyay kuwa waa la nacnaday annaari naarta u saaxiibka ahaa